السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدبرد السلام يا جودهان دتك كحرن كنال كيجا لان إنجليش with حسن. صاحب يال ما أنتو حردين سود دياريي إن دور أريو وكاسة عدد دونا دانك vocabulary إن إكاهر مريان إن هراو حلو يرقف بأنتو vocabulary بدني هاي أيو كجوانك سني هاي دانك اللغة دا vocabulary أدو فربدن إن أدبرتنا رانتي أدبي كاجا ساعدي سامحيلي أريج هدي أتقانه جملة سيد اللوجليو طبعا ويكون زان دونتا مركا إن شاء الله دور كان أري ربمانتا إن إذن لو داق صاحبيال مركا وحربا إن لبا شيء كحسوسيو سدح عن إراه سدح شيء لاجري مقال كان سدد فربدن وأجاره يوتيوب كنا أو أقون صدو حدي أذن هوري سبسكرايب ودهنا صاحب أما ولال كصابر يوتيوب كيجا لان إنجليش with حسن قدرك سدح دوامتك أقوم مهمسن waxaan ka doonayaa mid ka mid erayadan intaad qaadato qaybta commentiga inaad ku soo qorto adigoo jumlad gelinaya insha Allah qof waliba waan ka sixi doonaa waana ribali ayaan u soo geli doonaa waana fiiri doonaa qaabka uu jumlada u soo dhisay insha Allah waxaan rajaynayaa dad fara badan in ay jumlada qurux badan soo dhisi doonaan marka hore waan dul marayaa kadibna waan sharxayaa insha Allah information injury insight institution instruction instrument interesting internet international interview introduce invest involve job يعني job حغير قرالك كخلدن p معنا و b يعني p يا b باك لجرته so سومالو حدا b for pen يا b for book طبعا سيدا معهن b ذا p أيا لو دواقع مدان حدا كقرن ماشا وخلط b أيا لقربي job join chalk channel journalist channel church kit kill killer kind king kiss kitchen knee knife كيدا لو ما دواقيو knowledge labor laboratory lack lady land language laugh lawyer haddaba waxaan isku daynaa marka in aan macnayno intii aan ka gaarnana aan jumlad gelino insha Allah information waa warbixin for example can you give me some information about your country haddii qofku yiraahdo kale ma isin kartaa xogaa warbixin ku saabsan wadankaada injury waa dhaawac insight gudaha institution waa urur ama hay'ad intaba waa la oran karaa instruction awaamir طبعا markii aad imtixaan galayso instructionka iska fiiri wax badan macallimiintaadu waa ay ku dhaheen sidaan filayo instrument qalab interesting waa xiisayn for example this bookani ama this lesson casharkani is very interesting aad buu u xiiso badan yahay internet waxa weeye waa internetka caadiga ahaa you can't watch any video without internet internet la'aan wax video ah ma daawan kartid international waa caalami ah interview waraysi introduce waa barid tusaale laba qof markii aad isbarayso kale ama adigu naftaada markii aad qof kala barayso kale ayaa waxa la yiraahdaa introduce for example may I introduce ama waxaad dhigi kartaa
can you introduce me yourself ma ibari kartaa nafsadaada okay invest waa maalgelin invest maalgelin for example I want you to invest this company waxaan doonayaa in aan maalgashto companygan involve ku lug lahaansho job sida aan hor u sheegnayba way khaldan tahay b ayaa laga rabaa ma ahan p so job waa shaqo join ku biirid join ku biirid for example join our team ku soo biir kooxdeena joke waa kaftan journal waa jaraa'id ama journalka caadiga la akhrisana waxa la yiraahdaa journal journalistna waa wariye journalist waa wariyihii journey safar judge waa xaakim judge waa xaakim kid waa cunug kid cunug kill dil kill waa dil for example kill the lion dil libaaxa killa waa dilaa killa waa dilaa kill waa ficilkii killana waa qofkii fulinaya sorry kind waa nooc naxariisna way noqotaa king boqor kiss waa dhunkasho kitchen waa kushiin ama jikada knee waa jilibka knee kaydaas laguma dhawaaqayo it's silent waa mid laguma dhawaaqayo knife midi ina kayda laguma dhawaaqayo knowledge aqoon iyana waxa weeye laguma dhawaaqayo kaydaas for example haddii aan jumlad geliyo way arag academy oo kale ama learn English with Hassan waa source of knowledge oo kale waa isha aqoonta labor shaqaale labor laboratory shaybaar lack waa la'aan lack for example lack of confidence kalsooni la'aan lady marwo land dhul language luqad laugh qosol why are you laughing haddii qofku yiraahdo macnaheedu waxa waaye maxaad u qoslaysaa why are you laughing maxaad u qoslaysaa waxaa kaloo dhigi kartaa language haddii aan luqad galina can you how many languages can you speak imise luqad ayaad ku hadli kartaa erga ugu dambeeya ee ah lawyer waa qareen ama dadka midka maxkamadaha midka ka shaqeeya dadka u dooda waxaa la yiraahdaa lawyer haddaba halkaa ayaan kusoo afmeeraya insha allah waan idin soo badin doonaa muuqaaladan oo kale aadka u xiisaha badana idinkana waxaan idinka doonayaa in aad kanaalka subscribe gareysaan jumladna aad ka soo samaysaan insha allah aan aragno yaa ugu jumlad fiicnaan doono muuqaalka xig inta laga gaaro waxaan idinkaga tegaa sidaas iyo amaano allah